salaami dhamaan bahda SSV kasoo qayb galayaal maamul arday dhamaantiin idin salaamay ustaadka weyna waa salaamay soola hadan barnaamijku ku socdo kulli waxoogaa waa iskiin baraya magacayga waa Asma Faysal intii hore taqaanina way taqaanaa inta kalena magacayga waa Asma Faysal waxa ahay ardayda ka tirsan SSV waxaan qaatay 2 koorso aad muhiim ah waxaan ahay maanta qof xirfad aqoon rajo intaba leh kana tirsan bahdana arkaysan laakiin saan halka ku gaaro wadada oo maanta caaw barnaamijku ku saabsan yahay ayaa soo maray oo ah waxaan socday geeri balse waxaan helay nolol cusub oo ka duwan si aan anigu raadinayn caawa afar qaybood baa barnaamijka kaga qayb qaadan doona insha Allah ta koobaad waxay noqon doontaa tahriibka sababtii ugu dhalisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna ku dhalisa kuna kaliftay inay naftooda mahal ka galiyaan talabaadna waxay noqon doontaa suuqan markaan arkay fursada oo bixinayo in aan isku dayay balse haddana ka niyad jabay oo tahriibkii dib u qorsheeyay oo dib u bilaabay saddexaadna waxay noqon doontaa markii labaad suuqa ugu soo noqday rajana ii gashay iyo waliba sababta ay lahayd in raaciyo qodobka ugu dambeeya waxa kaga hadli doonaa in aan wahayn tahriibku fursada kaliya maanta dhalinyaradu haysato amba ay helayso waxay hadda taariikhdeeda ku socdo waxaan ahaa arday jaamacadeed waxa jaamacadda dhameeyay 2022 bishii 9 May markaan dhameeyay jaamacadda waxaan lahaa rajo badan waxa filayay in shaqo fiican heli doono dadkayga shaqaysan doono hooyo aaba tacabkoodii soo celin doono garab istaagi doono aniga noloshayda wax ka bedeli doono balse may noqon sida xaqiiqada dhabta ay wadanka ka jirta amba wadamadeena ka jirta waxa weeye in arday kumanaan gaaraysa sanad kasta baxaan balse ay la kulmaan shaqo la'aan ayadoo aanay hayn aqoon la'aan ayaga haysa balse ay tahay qabiil iyo oday iyo waxyaabo badan oo wadanka ka jira wadamada imka Soomaaliya kale ay dhibaatooyin kale ka sii jira laakiin Garowe Soomaaliland iyo dhulka marka loo eego ayadana dhibtaas ka jirto oo ah in aan qofkii dhalinyarada lagu saboorti gareynaynin aqoontiisa balse qabiil iyo qof wada loo eegayo markaan arkay waxa ii soo baxday inaanan halkan ka helaynin fursadan u baahnaa noloshan u baahnaa yani aabaha iyo hooyaday aanan ugu qaban karin sida rabay wax waxa go'aansaday oo igu dhalatay sababtii weeye in aan tahriibo wadanka dibadiisana fursad ka arko nafteydana mahalka u bareersiyo una qalqaaliyo markay halka mareysay waxa aaday dhowr jeer wadanka Itoobiya si aan u sii gudbo laakiin qorshe kasta degto markasta qorshe Ilaahay baa ka weyn markasta oo tago waa ku soo fashilin jiray waa iska geemi jiray aniga waqtiga u arkayay in aan xaleedahay soo guul daraystay rajadeedii soo dhaweyn kari waayay aniga qoomameynay murugoonay balse Ilaahay baa sheegay oo dhahay waasa an takrahu shay'an وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم waxyaaba qaar faa'iido inoo tahay inoo jecel in Ilaahay naga horstaago aniga faa'iido ii ahayd goorta inaan ka soo noqdo Itoobiya oo tahriibta aanan u sii socon waxaan Itoobiya ku laabtay ugu dambeyn waxa soo laabtay oo wadanka Soomaaliland ku soo laabtay 2024 bishii 7 anigoo ku soo laabtay hadal iyo duco waalid oo waalidkay soo maqlay soo adeecay laakiin si tahriibteedi maskaxdeeda kama bixin oo waxa ku rajaweeyaa maalinun in wadanka ka baxo oo tahriibo sababtoo ah fursadii aan ka waayay awalba kama helin waa ogaa wadanka inaan ka helin dan waa soo laabtay waxaan noqday qof oo guriga iska jooga markasta ka fikirtay in how aan uga bixi lahaa wadankayga waxaan iska daawan jiray TikTok live taasoo laga dhiirigeliyo tahriibta amba la isku wadaago sababaha iyo wadooyinka lagaga bixi karo wadanka halka asoo iska ah waxa bartay suuqan sababta ku bartayna waxay ahayd sabab tahriibta la xiriidha xilliga waxa la dooranayay Donald Trump Donald Trump wuxuu ugu taami jiray inuu celin doono dadka oo qaxoontiga ah aniga automatically waxa ka soo horjeestay odaygii Donald Trump waxa taageeray Islaan oo markaa la tartamaysay sababta ah waxaan ku rajo weynaa inaan qaxoonti noqdo wax weyn baaba ii ahayd malaa'in tahriibo qaxoonti noqdo
then adigu wararka ka soo baxa Mareykanka yani doorashada Mareykanka waa dhageysan jiray waa kasta waa ka wardooni jiray commentiyada akhri jiray fiidiyo laga sameeyay daawan jiray then waxaan arkay dhalinyaro badan oo dhiiri gelinaysa oo taageersan Donald Trump sababtoo waa isweydiin waxaan dhahay dhalinyarada maxay ku qabaan odaygan maxay ka faa'iideeyaan maxay ka galay odaygan tariibiyaasha waa soo celinayay dadka qaxoontiga ah tariibe soo waa baaray waxa ogaaday waxa ii soo baxay odaygan inuu dhaqaale ku fiican yahay dhaqaale badan horumarin karo waxyaabo saas ah adigu fiidiyo iyo commentiyada ka arkay tan waa baaray waxa ii soo baxay suuqa forex ani ahaan qofku horta inuu isbarto waa muhiim ani ahaan waan is aqaanay soo suuqa forex ma arkeenin markaa inuu aniga igu habboon yahay dan waan dhaafay waa baaray waxa arkay suuqa crypto waa sii baaray xog badan baa ka baaray YouTube ka galay waxaan arkay inaan xoogaa suuqan aan fursad ka heli karo halka iyadu ii joogta ayaa waxaan YouTube-ka markaan baaray ka helay istaadka weyn ee caawa inuu la sharfan barnaamijka istaad Sola YouTube-kiisa Binance si loo sameesto dan Binance baa sameystay suuqi baa galay suuq markaa hayb joogay aqoon ma lahayn yaa laakiin kaliya ani waxa ii muuqatay inaan fursad ka raadiyo adu suuqi waa galay suuqi markaan galay odaygii baa la doortay uu soo baxay suuq waxa isbedelay aniga markii feelingkayga sidoo imka soo sheegay Soomaalidu waxay jeceliin degdeg inay wax u helaan soo aniga feelingkayga markaa waxaan degdeg u heliyay fursad iyo lacag iyo shaqo yani laakiin feelingkaygu isbedelay suuqii markii odayga la doortay waxyaabo badan ba isbedelay suuqii ba isbedelay hoos buu u soo daatay ani waxaan dareemay inaan suuqan aqoon u lahayn tan waxa isku dayay suuqan in aan raadiyo bal aqoontii hawseen u baran lahaa aqoontii iyo ka heli kari lahaa iyo cidii aan markaa ka baran lahaa ee ugu munaasabka soo waa caqabada labaad in oran karo way ka darantay qabiilka maxalaya dawlad xumada wax kasta oo ah inay dhalinyaradu markay arkaan fursadaha la kulmaan dhalinyaro uga aqoon badan yani suuqyadan balse aan jeclayn inay caawiyaan xitaa haday isku dayaan aan jeclayn in waqtigooda wax ka siiyaan soo markan baaray korsooyin sida qaado laba wax baa ii soo baxay qayb dadka aqoonta suuqa wala dhacaya dhalinyaradii oo ka faa'iideysanaya chaniskan iyo baahidan ay dhalinyaradu qabaan suuqa isleen ka faa'iideysta ayagii wada laga sii faa'iideysanaya lacag laga dhacaya wala mar habaabinaya waxyaabo beenaba loo sheegaya iyo qayb kale oo jeclayn inay waqtigooda isiyaan balse video iga iibinaya lacag iga sinaya dan halka ma salaam soo waxa dhahay noosan macquul maaha isma keenayso suuqan wuxuu baahan qof si dhaba ku bara waqtigiisa ku siiya ku garab istaaga dan xitaa fursadii suuqa aan ka arkay mar labaad waxay ku dhalatay inaan intan tahriibo wadanka dibadiisa oo aan fursadan xitaa suuqa aan ku baran karo aan ka heli karo oo nu jirin qof Soomaali oo yani waqtigiisa iyo aqoontiisa ii hor kara mar labaad ba suuqa kan iyo jabay adoo waxa qorsheeyay hadana tahriibkii wada iska noqday leefafkii dadkii yani dhalinyaro oo tahriiba 90 ku dhex jiray maalinkii dambe waxa dhacday waa sababtii oo igu soo celisay suuqii haddaan u gudbo anigoo live TikTok ka soo baxay oo tahriiba ayaa waxaan la kulmay live-ka oo Android soo waa ku hakaday xoogaa live-kii markaan xoogaa dhageysanayay waxaan arkay Android oo dhalinyaro badan caawinaya qaar firi ku siinaya qaar la talinaya qaar su'aalo badan uga jawaabaya u hagar baxaya waya waxaan isdhay mala qof Soomaaliya daacad kama oo suuqan kaaga soo reeysan oo dhan yani uma sinaya dad waqtiyo adoo koorsooyin ba markaa la gahliyay meesha oo dhalinyaro badan lagu siinay qaar firi qaar maxalay qof walba deesud ku helo waa dhageystay barnaamijkii hadaladii markii oo Android lahaa waxa kamid ahaa neo adi haday ka go'an tahay qof dhalinyaro hamiyahan leh sare aad tahay anigu markasta waa ku garab taaganay waa idin taaganahay suuqa si dhaba idin barayna ilaa iyo maalinka aad isku filaanaysa gacanta lagu haynaya kaliya adiga waqtigaaga juhdigaaga hor iyo kartidaada oo muuji in suuqa wax ka qabsan kartid anaga garam dagama waaysid soo waa ku dhiiraday live-kii baa koray live-kii markan koray waa weydiisay su'aalo badan baa Android weydiiyay waxa ii soo baxday inay waqtigii siin karaan oo waqtigii aan islahay yani qof Soomaali kuma yani waqtigu waa waxa ugu qaalisan qof ku siiyo maanta qof Soomaali oo aqoon suuqan u leh ayaa waqti ku siinaya aniga ma dhaadhacsanaynba awilkii soo waxaan dareemay koorsadii markuu iiga sheekeeyay in macallin
ilaa iyo maalinkan anagu isku filaanna gacanta nahayn ee waqtina siinayo koorsadan si dhaban loo barayo yani nalaga faa'iideysanaynin tan waa ku dhiiraday raja ay gashay maasha Allah waa dhahay dabi saatay helaysid waa wax fiican alxamdulillah baa idhi degdeg baa koorsada markaa way xidhmaysay degdeg baa u dalbaday isagoo wali waa internet caawiyay sidii baa group 4 kaga mid noqday life oo tahriiba amba meel tahriib laga hadlayana maalinkiiba iigu dambeysay waxaan gaaray inaan tahriibka hadle iska daayay heer oo aan 24 saacadood yaa barka ugu dara si aad uga faa'iideysatid macallimiintan markasta ku heelan ku garab taagan waqtiga ku bixinaysa yani jecel inta ayagu gaadeen in ka badan inaad gaadhid adigu saas baa kaga takhalusay fikirkii ahaa in aan tahriibo uguna helay fursadii aan rabay iyo yani horumarkayga riyadayda iyo dhammaan SSV family oo ii xaqiijiyay oo igu garab istaagay runtii markaan arko say يعني community-gan u shaqeeyo waxa igu soo dhaca xadiis oo nabiga laga soo wariyay alayhi salaam oo Anas radiyallahu anhu soo wariyay oo aha la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qofna yani ma noqdo qof iimaan buu xale illa uu la jeclaado naftiisa wax la jeceliyo walaalkiina runtii ayagu saas bay ku sifaysan yihiin community-gan aanan amaan aan iga ahayn haddana waxay jeceliin maanta haddaan ku naahno yani lacag ku tareer gareyna ma hayna akoonadiina nooga soo xuma 100% nooga soo saarayaan si anagu meeshan doonayna u gaadhno mana jira adduunka qof oo aad ka helayso inuu riyadaada ku xaqiijiyo waqtiga yani waqtigiisa ku siiyo maxaa la yiraahdaa ku garab istaago walaaltinimo ku muujiyo xaq iyo qabyaalad iyo yani kala xeerashay waxaas ku jirin يعني سد كهشو markay imka Soomaaliyahay way adag tahay ugu dambeyn hadaan u soo gudbo qodobkii oo ahaa maanta fursada kaliya haystaan dhalinyaradu maaha tahriib waxay noqonaysaa tahriibku maaha fursada ay maanta haysano waxay haysanaa fursado badan oo ka badan waxaan haysanaa xirfado badan oo maanta ay heli karno dhalinyarada naga caawiya sida crypto AI stoga for egaska waxaasoo dhanna maanta haddaad garab istaag u baahantahay dhabo oo kaa go'antahay dad qaar baa jira iska riyoodo kaliya nolol fiican aakhirkana waa kuwa markay Yurub iyo qurbaha tagaan soo imku istaadku sheegay kaliya in la caawiyo de ku nool laakiin qofka haday rabitaan dhaba oo ah inuu horumaro oo naftiisa wuxuu qabto family-giisa ehelkiisa maxaa wadankiisa everything mas'uul baa ka saaran qof kasta oo dhalinyaro marka haddaad tahay qof ay ka go'an tahay runtii oo SSV-na caawi joogto oo barnaamijkan ka soo qayb gashay ani waxaan aaminsanahay inaad iska daa Yurub ku fakartay xitaa in aad kula tartami karto odaygii oo tahriibku iga dhex muuqday dhaqaalihiisa sababtoo ah wararka markaan daawanayay odayga aan yani ka soo horjeedo waxa ka rajaynay inaan ku noqdo wadankiisa qaxoonti laakiin maanta waxaan noqday qof oo suuqan falaqeeya dhaqaalaha wararka oo Mareykanka la socda dhaqaalaha hoos u dhacay ka kor u socda suuqyadan ka faa'iideysta xirfad buuxda leh oo crypto ah so alxamdulillah rabbil caalamiin ma hadda labaadna waxa iska leh SSV maanta qofka dhalinyarada fursado badan buu haystaa wuxuu haystaa walaal garab istaagaya oo ka tirsan community-gan wuxuu haystaa qof oo community-gan ka tirsan oo waqtigiisa si dhaba u siinaya balse horta waxaan ani yara dareemayaa wali in ay jiraan dadka dhalinyarada maran habaaminaya oo suuqan yani kaga faa'iideysanay baahida dhalinyarada u qabaan inay SSV ka badan yihiin waxaan rajaynayaa in dadka laga saari doono meesha oo maxaa la yiraahdaa SSV noqon doono meesha ay dhalinyaradu dhan ku soo hirtaan runtiina si dhab riyadooda ugu xaqiijiya sas baa rajaynaya insha Allah intaas baa kaga qayb galaya waana idin soo celiyay